wax garas iskugu jira salaadiin iyo cuqaal ka soo jeeda deegaanka Ceelaf Weyn ee gobolka Sanaag ayaa waxay ka hadleen dhacdo dil haweeney ah sababtay taas oo dhawaan ka dhacday deegaankaasi waxaana wax garadkani ku baaqeen in laga fogaado wax kasta oo jabin kara nabadii dhawaan deegaanka laga soo xidhay waxaana halkaas ka ballan qaadeen in ay gacanta ku soo dhigi doonaan ninkii falkaasi geystay gabadha mageydada odaygeeda caruurteeda cid kastoo reer Soomaaliland waanu ka tacsiyadeynaynaa ilaahayna waxaanu ka rajaynaynaa inuu janno firdawso geeyo reerkii iyo qoyskii ka baxdayna in ilaahay samir iyo iimaan ka siiyo iyo cawilsan ayaan ilaahay uga baryayaa intaa ka bacdi meeshan Ceelaf Weyn waynu ognahay waxa ka jirtay muddo fara badan dhib badan dhigbax badan waa la tegey nabad baa laga soo xidhay nabadda waxaan jeclahay inaan la siyaasadayn shilkaa dhacay ee aan la mid ahayn shilkii hore ee lagu koobo inta uu yahay marxumadii ku dhimatay deegaanka Ceelaf Weyn ee sida foosha xun u dhimatay ee inanka yari uu xabadda kaga dhacday waan ka tacsiideynayaa ehelkeedii oo dhan odaygeedii iyo caruurteedii iyo waalidkeed ee Soomaaliland oo dhan baan ka tacsiideynayaa waana ka xunnahay sida falkaas u dhacay wuxuu nagaga xun yahay falkaasu wixii hore dhacay ee dhici jiray waa nagaga xun yahay waana nagaga culus yahay waayo wuxuu noogu dhacay falkaasu si lama filaana oo aanu qaadan weynay ayuu falkaas u dhacay waxaanu u sheegaynaa ummadda Soomaaliland inaanu aad uga xunnahay annagoo garabkii uu ka dhashay ninkaa dhibka geystay falka geystay waxaanu aad u jeclayn inaanu markiiba goobta ku qabanno laakiin nasiib darro way noo suuro geli weydi si kastaba ha noqotee eedana waxaan qayb ka siinaya oo ka saaraya booliiskii halkaa ka howlgalay ma aha inay iyagu si kale u sii daayeen laakiin wax wanaajiya uun bay islahaayeenoo halkii dee ninkii arrintu ka dhacday ay iman lahaayeen halkii arrintu ka dhacday la iman lahaa bay magaaladii iyo odayaashii magaalada joogay qabqabteen dabeedna dadkii wuxuu noqday wax la xidhay iyo wax beerka dhigay iyo wax yaaca marka arrinkaa waxaan leeyahay meel aan ku habboonan bay ka qabteen booliisku hadda wixii ka dambeeyana hadday waxaasoo kale dhacaan waxa wanaagsan in odayaasha meesha jooga lala tashado meesha ay wuxuu ka dhaceenna la tago gacan ku dhiiglahaasi meel ma tagayna waa la qaban kari lahaa baanu isleenahay maxamed xasan daacad saab TV hargeysa